isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka Salel Leebaan Maxamuud Abaadir oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska gobolka Salel ayaa waxa uu ka waramay halka ay u marayaan tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee bisha lixaad labadeeda ka dhici doona caasimadda dalka ee Hargeysa isagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururka Yes Sport oo deeq diraysa soo gaarsiiyay xulka ciyaartooyga uga qayb gali doona ciyaaraha gobolada Soomaaliland gobolka Salel waxa kale oo intaasi ku daray isuduwuhu in xulka ciyaartooyga gobolka Salel ee bilihii ugu dambeeyay ay tababaro iyo alamitooyin ay ku galayeen xarunta gobolka Salel ee magaalada Saylac si ay isku diyaariyaan tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee bisha lixaad labadeeda ka dhici doona caasimadda dalka ee Hargeysa balse la filayo xulka ciyaartooyga gobolka Salel in dhaqaale darri awgeed ay uga haraan ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka dhici doona bisha lixaad labadeeda caasimadda dalka ee Hargeysa mar uu la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta gobolka Salel ayaa waxa uu yiri marka hore mahadnaqnaa waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan idinka sugaynaa intaa in ka badan waxaan rajaynaynaa inta kuwa soo diray iyo inta kale qurbo joogtay reer Salel inay walaalahooda Yes Sport oo agabka soo bixiyay ay ku daydaan oo ay kaga daydaan wax qabadka ay tarayaan inay wax ku qabtaan doonayaan gobolka Salel ay ku soo hagaajiyeen ninka la yiraahdo Cabdi Idris Ahmed oo saxil qaamay in uu sidii wanaagsan in loogu soo diray isla sidii la mid ah loogu wareejiyo waxa kale oo sheegaya ciyaartooygii abaabulkii xulka gobolka oo si wanaagsan loogu soo socday oo tayo leh annaga oo aan rajaynayno in aanu wadano ama aanu nahay gobolka kaliya tay ugu tayada wanaagsan ee asleenahay uu hanan karaa koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu qabanay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa aan maanta rajaynayno in aanu si wanaagsan oo sharaf looga qayb galno hanana doono iyadoo meeshaan laga filay laakiin annagu asleenahay way markaan isku eegna anigu dib isku noqon tayada ciyaartooy tayada maamul iyo ismaqalka iyo kala dambeynta gobolka kale tay hanan doona haddii aan gaari weynana meel wanaagsan tay doon meel aan laga filin gaari doona iyadoo sida ay tahay oo meel wanaagsan inoo mareysay waxaan filayaa in aan maanta ay u dhowday qarka u saaran tahay gobolkiisa loo qarka u saaran xulkiisii in uu ka haro tartanka gobolada dadaal dheer u galnay horeyna aanu ugu galnay imika aanu dadaal dheer ugu jirno si aan uga qayb galno ciyaarahaas taasi oo sababta ay tahay dhaqaale la'aan awgeed shirkan jiraayid ee isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo dalxiiska ee gobolka Salel uu ku qabtay magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel ayaa ku soo beegmaysa xilli ay middo kooban ka harsan tahay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa la diiriyay Cabdullaahi TV-ga qaranka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel